السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا أصحابتك حرن دار الليبان أكاديمي. Conversation 20 وشيكيسي لباتنات. Peace of Allah be upon you. السلام عليكم. Peace of Allah be upon you. السلام عليكم. Upon you too. وعليكم السلام. Upon you too. وعليكم السلام. Which is better? كيبا كون أكسن. For you أذيك to be in a نقطة an educated person qof aqoon-yahana or ama ignorant person ama qof jaahila. Which is better kayba ku wanaagsan for you adiga to be inaad noqotid an educated person qof aqoon-yahana or ama ignorant person ama qof jaahila. It's better for me anigu waxa ii wanaagsan to be inaan noqdo an educated one mid aqoon-yahana. It is better for me anigu waxa ii wanaagsan to be inaan noqdo an educated one aqoon-yahan. Why sabab do you prefer u doorbidaysaa to be inaan noqotid an educated one aqoon-yahan? Why sabab do you prefer u doorbidaysaa to be inaan noqotid an educated one aqoon-yahan? Because maxaa yeelay knowledge cilmigu slight waa iftiin. It removes people from darkness. dadkana wuxuu ka soo saaraa mugdiga intuu wuxuu u soo saaraa the light iftiinka. Because maxaa yeelay knowledge cilmigu slight waa iftiin. It removes people from darkness. dadku wuxuu ka soo saaraa mugdiga intuu wuxuu u soo saaraa the light iftiinka. Why sabab do you hate u necab tahay to be inaad noqotid an ignorant one jaahil? Why sabab do you hate u necab tahay to be inaad noqotid an ignorant one jaahil? Because maxaa yeelay ignorance jaahilnimadu stagnance waa mugdi. It leads people dadkuna waxay ku hogaamisaa into distraction burbur. Because maxaa yeelay ignorance jaahilnimadu stagnance waa mugdi. It leads people dadkuna waxay ku hogaamisaa into distraction burbur. What will you suggest Somali people? maxaa u soo jeedin lahayd dadka Soomaaliyeed? What will you suggest? maxaa u soo jeedin lahayd Somali people dadka Soomaaliyeed? I will suggest them waxaan u soo jeedin lahaa ayagu to spend a lot of their valuable time in ay waqtigooda khaaliga ah ay ku qarash gareeyaan on learning something inay wax bartaan. I would like suggest them waxaan u soo jeedin lahaa ayagu to spend inay ku qarash gareeyaan a lot of their valuable time waqtigooda qaaliga ah on learning something inay wax bartaan. waan soo dulmaraynaa sida caadada inoo ahayd ee asxaabay isla socod wanaagsan. Peace of Allah be upon you. Assalamu alaikum. Peace of Allah be upon you. Assalamu alaikum. Upon you too. Wa alaikum assalam. Upon you too. Wa alaikum assalam. Which is better? Kayba ku wanaagsan for you adiga to be an educated person inaad noqotid qof aqoon-yahana or ama ignorant person ama qof jaahila. It is better for me anigu waxa ii wanaagsan to be inaan noqdo an educated one aqoon-yahan. It is better for me anigu waxa ii wanaagsan to be inaan noqdo an educated person qof aqoon-yahana. Why sabab do you prefer u doorbidaysaa
to be inaad noqotid uneducated one mid aqoonyahana. Why sabab do you prefer u doorbidaysaa to be inaad noqotid uneducated one aqoonyahan? Because maxaa yeelay knowledge cilmigu is light waa iftiin. It removes people dadku wuxuu ka soo saaraa from darkness mugdiga into wuxuu u soo saaraa the light iftiinka. Because sababtoo ah knowledge cilmigu is light waa iftiin. It removes people dadku wuxuu ka soo saaraa from darkness mugdiga into wuxuu u soo saaraa the light iftiinka. Why sabab do you hate a necab tahay to be inaad noqotid an ignorant one jaahil? Why sabab do you hate a necab tahay to be inaad noqotid an ignorant one jaahil? Because maxaa yeelay ignorance jaahilnimadu is darkness waa mugdi. It leads people dadkuna waxay ku hogaamisaa into distraction burbur. Because maxaa yeelay ignorance jaahilnimadu is darkness waa mugdi. It leads waxay ku hogaamisaa people dadku into distraction burbur. What will you suggest maxaa u soo jeedin lahayd Somali people dadka Soomaaliyeed? What will you suggest maxaa u soo jeedin lahayd Somali people dadka Soomaaliyeed? I will suggest them waxaan u soo jeedin lahaa to spend inay ku qarash gareeyaan a lot of their valuable time waqtigooda khaaliga ah on learning something inay wax bartaan. waa mahadsantihiin asxaabay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.